waxaa bilihii ugu dambeeyay soo xoogaysanayay abaabulada iyo shirarka lagu taageerayo gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn inay ka madax bannaanaadaan maamulada had iyo jeer ku hardama gacan ku haynta goboladaasi. haddaba galbeedka magaalada London ayaa kulan isugu yimaadeen jaaliyada ka soo jeeda deegaanadaasi waxay ku taageereen shirkii dhawaan isimada Sool, Sanaag iyo Cayn ee SSC ugu soo gabagaboobay magaalada Buurawada oo ay ku ansixinayeen hoggaanka cusub ee dhawaan lagu soo doortay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. go'aamada ay gaareen ee wax ku oolka ee waxtar kale ee wada jirka ee midnimada ah ayaan ku taageeraynaa. aqoonteenu waa Soomaali weyn, waxaynu ka soo horjeednaa wixii Soomaali kala goynaya. Soomaalinimo, midnimo, wada jir, calankii iyo karaamadii iyo wada jirkii wuxuu yidhi xaaji aadan afkallo ilaahay ha u naxariiste ilkuhu wada jirkooda hilbaha adag ku gooyaan hadday iniba meel taagan tahay arax ma feenteen. midnimada Soomaaliyeed ee calanka buluuga lagu xaragoonaya wuxuu ka bilaabay SSC, maantana waxaynu ka bilaabaynaa 20 sanadood dibadii in aynu ka bilowno SSC xorriyadii Soomaaliyeed oo aynu ku gaadhno, in aynu ka xoreyno dadka soo hagoogtay haragga shabeelka ee ku dhuumanaya waxaan dawlad ahayn ee maanta dalkeennii iyo dadkeennii aynu arkayno say ogoleen. war wixii wanaagsan ha u kala hadhina. sida aynu u dhaqanno maanta ayaa shayb garaynaysa ama qaabaynaysa ama habaynaysa boqolka sannadood ee soo socda. haddii aynu isla weyno talada ama ay naga hoosto ama ay dhulka inooga dhacdo boqolka sannadood ee soo socda taladu dhulka inaga oolaysa. adigu maxaa tahay? dalkeebaad leedahay, dadkeebaad leedahay, aqoonteebaad leedahay. dadka aqoonta u lahaa waa kuwani. goormaad u fakiri doontiin ummadiinna? maxamed ibraahim cigaal allah u naxariisto kursigu ka dhintay saddexda nin isku haysta ee dalkii ay isku magacaabeen inay wax u hagaajinayaan aan waxba u qaban waxalaale waxay u qabteen ma jirto. kursigii bay ku dagaalamayaan. laascaanoodna waxay u qabsadeen dadka inay been ugu sheegaan oo yiraahdaan haddii aanu laascaanood qabanno waxaanu idiin keenaynaa aqoonsi baanu idiin keenaynaa, taasoo aan waxba ka jirin. wax allaale wax ka jiraa ma jirin. waa 20 sannadood hadda inta Northern Region goonida u taagnayd wax hal qabiilna aad wax mu'taraafay. waxaan kaloo haddaanu nahay gabdhaha Sool iyo Sanaag iyo Cayn digniin u soo gudbinaynaa Soomaali diidka in allaale intii ka soo jeeda horumarka dhaqanka ayagana waxaan leenahay waqtigii waa dhamaaday. waxaanu leenahay waqtigii waa dhamaaday. ministradeenna u soo dirayseen Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaanu leenahay waqtigiinni waa dhamaaday. albaabadiina waa xidhmeynaa keeni jirtaan sanaadiiqdiina waddankayaga. waqtigii waa dhamaaday baan idin leenahay. waxaan kaloo idin leenahay waqtigii waa dhamaaday. aad macdantayada iyo batroolkayga aad ka dulaaleyseen waqtigii waa dhamaaday. carruurtayada 10 jirada ah aad intaad qaadataan bunduqa intaad noogu soo dhiibtaan aad annaga nagu soo dirayseen waqtigii waa dhamaaday. albaabadiina waa xirmeen waana dhaqaaqnay annagu waan idin leenahay. xafladan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka dhalinyarada Suudo ayaa ahayd mid aad u bilicsan isla markaana lagu soo sharaxay calanka Soomaaliya iyo fanaanado markaasi lagu sawiray calanka Soomaaliya isla markaana lagu xardhay hal ku dhigyo lagu taageerayo shirkaasi SSC. waxaan aad ugu faraxsanahay xafladan inaan ku qabano London waanu ku taageerayno go'aamadaasi si buuxa. waxa aanu mar walba soo dhaweynaynaa oo taageersanahay oo aanu gacan siinaynaa cid kasta oo Soomaaliyeed oo nabadgelyada iyo amniga iyo wax ka qabadka dalka Soomaaliya wax u qabanaya. maanta waxaan u yimid inaan shucuurteeda muujino, inaan number 1 muujino inaan nahay dad Soomaaliyeed calankana sidanana aan muujinayna inaan leenahay. xafladan ayaa ahayd xaflad ay markaas dadka sidaad arkaysaan ba aad soo dhaafiyeen. Abdinaasir Ciiro, Universal TV, London.